الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة برنامج كيني ودنكينا وحبرتا. ما أنت وحا إنو كهضلنا ولا ليال قيمها وليها علمكم وبقيمها إلا ده قونتو قفكم مركا وقرتو قيمها وليها الشيء أيو بلابا إنو كد دالا ما دال كيسو كبحيو قيمها وليها علمك وحا إنو كقرانينا وقلنك والشيء كبادة إلهي سبحانه وتعالى وأبوري intaasoo kumanaan oo sano ka hor intaan khalqigaba ilaahay abuurin ayaa waxa uu koobaad u abuuray waa qalinka. awalu maa khalaqa allah alqalam. aadam waa aabaheen markii ilaahay subxaana watacaala uu abuuray waxa ilaahay uu siiyey cilmi. malaa'igtu markay yidhaahdeen maxaad khalqi u keenaysaa adduunyada, laga yaababa inuu dhiig daadiyo, laga yaabo inuu aafooyin iyo balaayooyin la yimaado, waxa ilaahay subxaana watacaala ugu jawaabay ama jawaabtii ilaahay subxaana watacaala waxa uu sheegay innii aclamu maa laa taclamuun, waxaan ogahay ba ilaahay ku yidhi waxaydaan ogeyn. waxaasina waxa uu noqday in ilaahay uu baray cilmi. wacallama aadama alasmaa'a kullaha. aadam waxa ilaahay uu baray magacyada oo dhan. hore mar dambe aynu ka warrami doonaa waxa ilaahay subxaana watacaala uu baray iyo waxa uu cilmigaas yahay. sidoo kale dadka ummadaha bedela dhammaantood waxa ku lifaaqan aqoon iyo cilmi. ambiyada ayaa ugu waaweyn dadka ummadaha bedela. waxa ilaahay subxaana watacaala nebi luud uu leeyahay, nebi luud waxaan siiyey xukun iyo cilmi. waluudan aataynaahu xukman wa cilma. nebi muuse waxa la siiyey xukun iyo cilmi. walamaa balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wa cilma. nebi yuusuf waxa la siiyey xukun iyo cilmi. walamaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilma. nebi yacquub waa mid aqoon u leh wixii alla uu baray. wainnahu laduu cilmin limaa callamnaah walaakina akthara annaasi laa yaclamuun. nebi daa'uud iyo sulaymaan waxa la siiyey xukun iyo cilmi. wakullan aataynaa xukman wa cilma. nebi ciise waxa la xasuusiyey in la baray aqoon. waid callamtuka alkitaaba walxikmata waltawraata walinjiil. nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxa la baray wax aanu hore u aqoon. wacallamaka maa lam takun taclam. waxaad arkaysaa dhammaan dadka ummadaha bedela oo ay ugu waawan yihiin ambiyada amba nebiyadu in dhammaantood uu ku lifaaqan yahay aqoonta iyo cilmi. rasuulku wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, talabu lcilm, in cilmiga la doono oo la bartaa, fariidatun waa faral maaha sunne, waa faral calaa kulli muslimin, muslim kasta saaran. sidoo kale ilaahay waxa uu leeyay subxaana watacaala, yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum. ilaahay waxa uu kor ugu qaadaa kuwa iimaanka la yimi. cid kalena ilaahay kor buu u qaadaa, waayo waaladiina uutuu lcilma darajaat. iyo kuwa weliba cilmiga la siiyey waxaan ilaahay weliba kor ugu qaadaa darajooyin. waman salaka dariiqan, rasuulku wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam xadiidkan, qofka mara amba qabta dariiqan wado, yaltamis uu ku doonayo fiihi waddadaa cilman cilmi, sahala allahu, ilaahay waxa ugu fudeediyaa bihi waddadaa uu maray dariiqan ila aljanna, waddo uu maro amba tub uu maro jannada.
ina almalaa'ikata xadiiskan aadka ula yaab kale la soco malaa'igtu waxay u dhigaan baalashooda iyagoo raalli ku ah qofka daalibulcilmiga amaba cilmiga doonaya waxa uu samaynayo macnaha malaa'igta ayaa markay iskaga hor yimaadaan waddooyinka ayaa isu dhuldhiga qofka cilmiga baranaya subxaana allah ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka waxa uu leeyahy innama si kalaba maaha arrinku si kalaba maahee yakhsha allaha ilaahay waxa ka cabsada oo qura cid qura waayo ciddaasi alculamaa dadka cilmiga u saaxiibkaa waxaa kaloo ilaahay subxana wa tacala nebi maxamed u sheegay in uu ilaahay ka baryo inuu u siyaadiyo hal shay maaha xoolo maaha awood iyo maamul maaha wax kale waxa ilahay subxana wa tacala ku uhi waqul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbigayow zidnii cilman cilmiga ii kordhi cilmi ii siyaadi cilmiga ii farabadi waxaa kaloo rasuulku alayh salatu salaam uu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran qofka ilaahay khayr uu la doono yufaqihhu fi ddiin waxa uu fahansiiyaa diinta ayuu fahansiiyaa baa uu leeyahay rasuulku alayh salaatu wasalaam xadiidkan waa xadiis aada u la yaab badan waxaa kaloo ka warramayaa an qofka cilmiga macnaa doonaya yastakfiru lahu qofka caalimka amaba qofka cilmiga doonaya yastakfiru lahu waxaad ilaahay dambi dhaaf u weydiiyaa man fi samaa'i waalard samada iyo dhulka waxa ku jira oo dhan ilaa xataa kalluunka badda ku jira een arkahaynba ayaa usoo duceeya oo ilaahay dambi dhaaf u weydiiya subxaana allah waxaa kaloo rasuulku leh alayh salatu salaam fadliga qofka cilmiga leh iyo miskiinka yaree dad iska cibaadada un la imanaya wax kale aan cilmi lahayn fadliga udhexeeya waxa weeyaan dayaxa iyo xidigaha fadliga udhexeeya dee isuma dhowaa iftiinkoodu isuma dhowaa wa ina alculamaa hum warathatu lambiyaa ambiyada iyo nebiyada waxaa dhaxlay culimada hore waynagu sheegnay ummadaha dadka bedelay waxa u waaweyn ambiyada waxa kusoo xiga culimada waayo waxay dhaxleen ambiyadii ambiyadu wuu leey rasuulku alayh salatu salaam may dhaxalsiin dadka diinaar iyo dirham dollar iyo fido iyo waxba toona may ka tegin laakiin waxay ka tegeen wa inamaa warathu lcilm cilmi bay ka tegeen faman akhadahu qofka cilmiga bartay qaata akhada waxa uu qaatay bixadin nasiib waafirin weyn qofkaasi nasiib aada u weyn ayuu faa'iiday oo u helay rasuulku wuxuu leeyay alayh salaatu wasalaam xadiiskan abu hureyre laga warinayo qofka haddii uu dhinto bani aadamkii camalkiisu wuu go-aa oo dee qofkiiba uu dhintay ma shaqaysan karayo 3 arrimood marka laga yimaado mooyaane 3daa arrimood camalkii wuu u soconaya ka koowaad waxa weeyaan sadaqatun jaariya sadaqo uu bixiyey masaajid uu dhisay oo kale oo u soconaysa oo dee ajarkii dadkii weli ay wadayaan aw cilmin yuntafacu bih amaba cilmi dadku ay ku intifaacsanayaan xadiis buu qoray rasuulka alayh salaatu wasalaam kitaab buu qoray meel cilmiga lagu barto ayuu dhisay subxaana allah dadku way ka faa'iidayaan dadna ajar baa loo qorayaa aw waladun saalixun amba ilmo wanaagsan oo yadcu lahu soo duceeya ilmahaaga haddii aanad aqoon barin waxa weeyaan maxay dee ma gaadhisid meel kuma dee muxuu saalix uma noqon karayo sadaqa jaariyana ma bixin kartid ilaa aad aqoon u yeelato oo ilaa lagu sheegay inaad sadaqadan jaariga ay sidaa tahay oo masaajid haddii aad dhista uu kuu soconayo ilaa sidaa og tahay dee ma samaynaysid marka waxa weeyaan wuxuuba waxay kusoo ururaysaa cilmi awoodda iyo cilmiga waxaan idiin sheegaya 2 arrimood aada u la yaab leh jinka aqoonta leh ayaa ka sarreeya jinka aan aqoonta lahayn qisadii nebi sulaymaan 2dii jin midi waxa uu yihi cifriitun min aljin waa mid aada u xoog weyn oo jinkaaba ilaahay subxana wa tacala yidhi wuxuu uhi kursigii gabadhii balqiis waxaan ku keenayaa gelin mid kala hadlay qaala aladii cindahu cilmun min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik kii aqoonta lahaa muxuu yidhi qabla an yartadda ilayka darfuk inta ilbiriqsi baan kugu keenaya buu yidhi labadaas maxay ku kala duwan yihiin ma ahayn kana xoog weyni wax kale kuma kala duwanaa ka labaad ilaahay waxa uu ku sifeeyey qura aqoon kii aqoonta lahaa waxa uu yidhi ba ilaahay subxana wa tacala yidhi bale arrin kasii la yaab badan baan idiin sheegaya eyga aqoonta leh ayaa ka sarreeya eyga aan aqoonta lahayn waa ka ilaahay subxana wa tacaala yidhi mukallibiina tucallimuunahum mima callamakum allah ayda
waxaa cuni kartaan aydu waxaa idin soo qabatay ayda aad barteen wixii ilaahay subxana watacaala idin baray. marka ayga aqoonta leh ee wax la baray sida loo ugaarsada la baray wuxuu soo qabto waa la cunaya, ayga kale laakiinse wixii soo qabto lama cunay. marka aqoon ayay isku dhaafeen. aqoontu laba loo kala qaybiyaa ama noocyada cilmigu waa laba. waa mid faral ah, labaduba waa faral, laakiin midna waa fardu cayn, midna waa fardu kifaaya. fardu caynku waa maxay? waa wax qofka sidiisa u saaran oo qofka madaxiisa saaran, dadka oo dhan hadday isu yimaadaan ay u qabsiraadaan u qabta aanay u qaban karahayn, isaga laftarkiisa laga rabo. waxaa ka mid ah cilmiyadaas salaada sidii qofku u tukanayo, zakada siduu isaga bixinayo, xajka haddii uu tagayo siduu u xajayo, allahuma salli calaa maxamed, ganacsada hadduu yahay oo kale siduu u ganacsanayo ama ganacsigii islaamiga ha u samaynayo. arrimahaas oo dhan waa arrimo laga rabo. hadduu dhakhtar yahay qofku inuu kala garanayo qofka uu ka garanayo diinta, in si aanu qofkan kale dhibaato markaa u gelin xagga diinta ah oo aanu ku qasbin wax dee diintii kasoo horjeeda. cilmi kalaa jira, waa cilmi haddii badh ay qabtaan ay ku fillaan karaan. cilmigaasi waa cilmiga nolosha, sida dhakhtarnimada oo kale, injineernimada oo kale. cilmigani waa cilmu fardu kifaaya baa la yidhahdaa. waa faral qaybi haddii ay samayso inta kale ay kaga fillaanayso. ha yeeshee haddii ummadda laga waayo in ku filan, dhakhaatiirtii ku filan haddii la waayo ama injineeradii ku filan haddii la waayo, ummaddu siday u dhan tahay way dembaabaysaa. subxaana allah, ummaddeena maxaa dembi iyo dembi saaran haddii aynu sidaa u fahanno oo aynu u eegno aqoonta sidaa haddii aynu u eegno. marka waxaynala gudboon in aynu cilmiga aynu usoo baraarugno. insha allah xalqadaha dambe ayaan kaga warrami doonaa waxyaabaha la samayn karayo iyo sida hore loogu soconayo. ha yeeshee maanta waxaynu kusoo koobaynaa qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay cilmigu. sala allahuma calaa sayidina muxamed وعلى آله وصحبه أجمعين. Subscribe, share, like, page. What